Congratulations, we are so happy for you. Congratulations, I'm so happy for you, Apple. Love you, Dad. Aabe, congratulations. Waxaa tahay aabaha adduunyada ugu fiican. I love you, Aabe. Si fiican noo soo korisay. Congratulations. Hi, my name is Gandhi Mohammed. I'm here to talk about Minneapolis Public Schools and how it has helped me. I started public schools in 1993 as a 7th grader. Learned English from zero to my ability right now. One thing I like to say about Minneapolis Public Schools, and that is that thank you for the opportunity to get free education. Thank you for helping me learn English, learn the tools that are needed in life to become successful. I also wanted to thank my father for helping us go through our middle school years and high school years, for staying with us, for all of his hard work. I wanted to talk about my middle school, I guess. My middle school is the basic foundation of schooling for me. That is where I learned the alphabet and on. So that is something that was very important to me. My father always used to come to our school, pick us up, and drop us off at the library every day. That was a very important tool in my educational experience, because had it not been for my father and the public schools working together in my educational success, I wouldn't have reached the point where I'm at. I guess I would say that thanks goes to a lot of people, from the teachers' aides that are there, from the after-school homework help that is there, from the teachers that spend all of their time coming up with additional homework to help us, people who are having English problems. And also I wanted to say thank you for all of the after-school ESL programs that are there, that my father helped us go to every day after school. So I guess thank you all, and thank you for the opportunity. Hello, my name is Yusuf Hared. I started school, Minneapolis Public Schools, in 1993 in the 6th grade at Lindale Elementary School. I went off to Sanford Middle School, Roosevelt High School, and later went on to college. Minneapolis Public Schools has helped me a lot. I remember my 6th grade classroom where my classmates would take turns teaching me English. I was the only Somalian student in my class, and so they would take their research time, and my teacher helped a lot. Miss Chuma, I still remember her. High school and middle school was a little bit, and middle school and elementary school was a little bit of struggle, because English was not my first language. I didn't know how to read or write or speak, so it was a little challenging. But as times went on, going to the libraries and committing all my time to learning English, it's paid off, because when I got to high school, it was a little bit easier. In college, I would like to thank the Minneapolis Public Schools and my father for always being there and helping out. Hi, my name is Ikram Mohammed. I am a product of Minneapolis Public Schools. I started off in, I believe, 3rd grade at Lindale Elementary School, and then went on to Sanford Middle School, and then Roosevelt High. And then after graduating from Roosevelt High, I went to the University of Minnesota. Well, the impact that Minneapolis Public Schools has had in my life has been tremendous. First of all, I had a lot of ESL classes because, of course, as a new immigrant, Somalian speaking and not speaking English at all, it was very difficult to start off at 3rd grade reading with 3rd graders who have had a lot of experience in speaking English. But with a great father and a lot of experienced teachers and very wonderful teachers, I've had the chance and the opportunity to learn
the best that I could with the help of having after-school programs, and my dad always working his 110%, going to take us to the libraries, helping find free tutors, asking extra homework from the teachers. I particularly would like to give a big thanks back to Minneapolis Public Schools and an individual that I actually, till this day, I remember her name, Miss Orange, who's taught me the ABCs and every day struggled to teach me English one by one. So, I mean, as a product of Minneapolis Public Schools, I do like to give a big thanks to Minneapolis Public Schools and, of course, my wonderful father who's dedicated his whole life in helping us work his 110% every day, trying to help us learn English with the difficulties of raising us as children, as anyone can imagine. I'd like to give thanks. Thank you. Hi, my name is Suleiman Muhammad. I came to the United States in 1993, and right away Minneapolis Public Schools has helped me get caught up with my peers in third grade, and it also has helped me through middle school and in Roosevelt High School, my high school, in many ways. The teachers were great. I'd like to say thank you to all the Minneapolis Public Schools that's helped my people and as well as foreign people. And my father has pushed us really hard to get far in life, and with the help from teachers at many of the schools that I went to, I'm really prepared for my life, and thank you very much to all the Minneapolis Public High Schools. Hi, my name is Fardosa Muhammad. Minneapolis Public Schools has had a profound effect on my educational achievement, as well as my father's hard work and dedication to raising us as a family and having a profound effect on us and making sure that we went to school and stayed in our studies as much as we could. I came here in 1993, started off at Armitage Elementary. I remember starting off in this program called Yellow Brick Road, and this program allowed me to learn my ABCs, allowed me to also advance and read as much as I could, and I went on and advanced into advanced placement in my middle school. I went to Anthony Middle School. During that time, I think I blossomed into wanting to advance my education and also helping my peers who had just come to the United States as Somali immigrants learn their English as I was helped when I was younger. I then went on to South High School, where I joined advanced placement classes and also got accepted to numerous different clubs and activities. One of the areas that I most enjoyed about attending Minneapolis Public Schools was the level of dedication that the teachers had on the students and the level of care and perseverance that they showed us, especially as immigrants. They were careful in making sure that we got that special attention, and I had later on went on to graduating high school from South High School and attending the University of Minnesota. I now am a graduate student at St. Mary's University, and I really do not think that I would have gotten as far as I did and attained the level of educational abilities that I have now without attending Minneapolis Public Schools and without the teachers pushing us, as well as my father making sure that he was there and making sure that we stick to our studies and dropping us off, picking us up, and staying dedicated to us like he has been his entire life. So again, I would like to thank Minneapolis Public Schools as well as my father for making us the products that we are now. Thank you. Hared waxaan xusuusanahay
inuu ka shaqayn jiray safaaraddii Jarmalka oo halkaa markaan tegayay Jarmal 67 aan halkaa ku bartay ilaa imkan aan aqaano marka halkan wuxuu la yimiday caruur badan buu la yimiday caruurtiisii wuxuu isagoo kaliya la yimi hooyadood lama socon waxaan xusuusanahay siduu la dhaqmi jiray uu u daba joogay iskuulka markay tagaan waxa ay soo bartaan muxuu ahaayey ay u noqdeen kuwo muxuu ahaa ku guulaystay. Hello, I am Meredith Davis and I'm principal here at Sanford Middle School in South Minneapolis. And I have just watched the video on Yusuf and his very successful children, and I had a few things that I wanted to say. As principal, I've spent many years wondering and trying to figure out what it is that will make children successful in their later years when they are grown up. Hared iyo caruurtiisa afarta caruura oo iskuulka Sanford soo martay saddex ka mida waan hubaa inaan waqtigoodii joogay oo aan goobjoog u ahaa sida uu wax uga qabto Hared sida uu kulkulul yahay sida aabe gacan bira ku haya uu u yahay oo aan aad ugu bogi jiray oo ugu bogaadin jiray oo aanu nagaga maqnaan jirin shir kasta oo looga yeedho oo uu u iman jiray xilliyo badan oo dheeraada oo gelin hore iyo isagoo socda iyo mar walba weliba ku kulul oo u rabaysanaya sida dadka qaarkii ka baqaan caruurtooda. Hi, I am so proud to have been able to work with Firdausa and with her family, her father, namely her father Yusuf. Firdausa was a student at Anthony Middle School for 3 years, and I will tell you she was a very successful student. And why was she successful? Because she came to school every single day. She worked hard while she was here. She was engaged with the material. She wanted to do the work. She asked for extra help when she needed it. She learned from others, and she was willing to share that knowledge with others. An important part of being successful at Anthony is parent involvement. Yusuf, Firdausa's father, was here for everything. He came and... Aabbahay Yusuf Maxamed Hared meeshuu adduunka maanta iga soo gaarsiiyay iyo noloshii intuu nala soo qabtay annagoo yar waddankana keenay wuu naga soo shaqeeyay noloshiisa dhan ayuu annaga keligeen dib nooga dhigay marka waxaan jeclaan lahaa inaan dhaho maantay aabe waa mahadsan tahay mirahaagii si fiican u soo baxeen oo si fiican ayaan u badbaadaa nin xoog leh baan ahay maantay oo shaqaysto businessman ah xoogaygana xoogaagii waa maantay Somali TV waa mahadsantihiin waxaan u mahadcelinayaa dadkii dhammaa oo Soomaali oo nala soo qabtay aabahay gacanta oo koriskeena iyo badbaadinteena waxbarashadeena la soo qabtay inaan dhawaan mahadsantihiin ilaahay baa mahad leh alxamdulilah maantay waxaan joognaa aabahay inaan u mahadceliyo oo sidoo noola dadaalay oo gacanta noo qabtay dhinaca waxbarashada hadartaan anigoo qof wax soo bartay oo educationkayga dhameystay oo hooyo hadartaanid waxaan ku dadaalayaa ilmahayga sidoo aabahay noogu soo dadaalay insha Allah inaan ugu dadaalo هاي خديجة داهر بخرن أو كم إذا فنانين تقارنك كنا الوضع كان مرايكن كجارهان استيت كن مرسورة وحنا رنتي عدين كرا يوسف حريد أنت أنك أقانو نولوشيسا أنت أنا بدي سوق الله وضع كإلا 95 كي لبعتي يقول رسول نلا كلام تمركي أنا استيت كنمي إلا حدا ورنتي ويال بس كنا قضي يوسف حريد مرنا بكما وهرين تريال كورورين تبلشدي سي كوميونيتي كي سي دتك كي سجارهان دتك سوق ليتي جالس كل بعتي سنة لقطة يدلك يدتك يأفكوا بدي بعتك وياهي inkastoo stateku aad moodayno hadda barafkiiba ka yaraaday markii ummadii isugu timi aqoontii dadkeena aad u tiro badatay oo aad moodayna in Muqdisho joogno intii ka horeyso dhankaasi kama u hadhin hay'adaha dadka gargaara oo isagu marka af iyo indho iyo aqli iyo aqoon garasho wax kasta uu ahaa saasa Yusuf Hared marka uu garanaya aqoontiisa inuu dadka aad u taakulan jiray waxaan qiinay ilaa iyo intaan imi Minnesota waxaan imi anigu Minnesota 1997 waqtigaas Hared Yusuf Hared
wuxuu lahaa qoys weyn weeye 5 caruur ah ayaa iskuulada ugu jiray markaasna dadka Soomaaliyeed ayuu caawin jiray oo community oo dhan buu caawin jiray qofkii cusub ee wadanka yimaada inuu la doono sariiro harkimooyin kuraas wixii la heli karo inuu meelaha uga helo ayuu sameyn jiray laakiin waxa ugu muhiimsan in sanadkii 2009 iyo sanadkanba la siiyay Minneapolis Public Schools ay siiyeen bilado ay ku muujinayaan qadarinta ay u hayaan oo ah qof waalida oo nina oo caruurtiisii oo dhan ka saaray iskuulada jaamacadana ay galeen qaarkoodna ay jaamacadii ka baxeen marka muhiimaddu waxa weeye badanaaba caruurta Soomaaliyeed waxa aad ula dadaala oo la shaqeeya hooyooyinka haddaad tagto hadda iskuulada iyagaa jooga haddaad guriga eegto iyagaa jooga laakiin nin waalida oo aanay xaasla joogin oo caruurtii keligii korinaya ayaa ammaan mudan waa single father waxa aad loo yaqaanaa single mother marka laakiin single mother keligii caruurtii korinaya oo waliba aan intaa ku ekaane community-gi iyo dadkii kale caawinaya aad iyo aad buu qiimo badan yahay marka waxaan leeyahay Hared waa oday Soomaaliyeed tusaale inuu yahay uu mudan yahay kulligeen oo dhan buu tusaale inoo yahay marka ilaahay ha garab galo uun amaanan yahay Yusuf Hared waxaan bartay anigoo aan aragiisa wali arkin magaciisa waxaan ku bartay wax runtii loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed kulligeed ma aragtay ay tixgeliyaan la iskuna aqoonsado instead oo qabiil la isku aqoonsan lahaa marka Yusuf waxaan bartay runtii waayihii ugu horeysay ee Soomaalidu ay halkan Minnesota timid gacanta uu ka geystay iyo sidoo uu ahaa nin habeen iyo maalin u soo jeeda arrimaha dadka Soomaaliyeed oo halkaan ma garanaysaa Minnesota dadkii ugu soo horeeyaba ah qofka soo aan la kulmo wuxuu ii sheegi jiray runtii nin Hared la yiraahdo ba maxaa la yiraahdaa shaqooyinkaasi nin Hared la yiraahdo ba maxaa la yiraahdaa meeshaas ila tagay nin Hared la yiraahdaa i kaalmay xaqiiqdii marka waxaan islahaa qofka arki doonto waa qof nooca ah waxaan arkay nin weyn oo ma garanaysaa runtii aan islahayn xitaa ma garanaysaa waa nin dhalinyaro energy intaas la eg ay ku jirto laakiin maxaa la yiraahdaa ay tahay niyad waxa uu ummadda Soomaaliyeed runtii uu qabanay marka runtii waa dadka u baahan hadiyo jeer in laga hadlo kulligeen waajibaad baa saaran laakiin waa qof walba sidii waajibaadkiisa u guto marka aniga ninkaas waxaan ku xurmeeyaa sida uu maxaa la yiraahdaa isugu xilqaamay umadiisa markay u baahneed kadib waxaan bartay Hared anigoo aan xitaa si fiican u aqoono dhowr meelood ku arkay ayaa waxaan bartay ilmihiisa oo isaga ma garanaysaa dhudhun iyo baac dheer runtii oo runtii halgamaya oo community-yadii maxaa la yiraahdaa bidix iyo midig uga soo galaya oo runtii aad moodo in uu soo faray isaga u yiri war aniga markaan waxaan u ekahay inaan retire noqon doono halkaan ka sii ambaqaado oo kale waxa qof wanaagsan ilmaha u koriyo waxaad arkaysaa marka ay community-ga soo dhex galaan sida ay iyaguna ma garanaysaa ay kaalintooda uga qaataan community-ga marka runtii aad aan ugu faraxsanahay inaan codkayga ma aragtay kala qayb qaato in aan iraahdo Yusuf Hared walaalo waad ku mahadsan tahay halgankii aad ka soo gashay ummadda Soomaaliyeed iyo in aad maxaa la yiraahdaa haddana aad ilmahaadi ka dhigtay in ay noqdaan kuwii ma garanaysaa shaqadii aad adiga haysay meesha ka sii ambaqaado insha Allah
kulligeen waa waxna loo ka wada baahan yahay laakiin waxaa moodaa dadka qaarkood inay gartaan xilkaas intaa la eg amaba ma garanaysaa in sacrificekaas uu u sameeyo si ummadiisa ay mataqaanaa ay u hesho maxaa la yiraahdaa meel uu isaga usii falay ay iyagu ku nastaan. bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan aadan haddii aan isku dayo bal inaan soo yaro xasuusto wixii aan ka xasuusan karo yuusuf iyo caruurtiisa waxaan aqaanay tan iyo 1995 halkaas oo ay ka bilaabeen waxbarashadoodii dugsiyada dadweynaha ee Minneapolis waxaan xasuustaa in Yusuf subax walba uu ilmaha kiciyo isla markaas uu hubiyo in arday walba uu dugsiga tagay wuxuu ku xirnaa macallimiintooda wuxuu ku xirnaa maamulka dugsiga wuxuuna ka codsan jiray macallimiinta iyo maamulkaba inay siiyaan casharo dheeraad ah kadibna wuxuu ka soo qaaday jiray dugsiga isla markaasna wuxuu geyn jiray library-ga waxaan kale oo xasuustaa in Yusuf uu isagu caawin jiray dadka maatada ah ee tabaalaysan ee Soomaaliyeed ee iyagu isaga gooshiyay gobolada kala duwan ee Mareykanka ee ay ku soo dageen isagoo aan ugu aabayeelayn qofku yahay iyo meesha